كل وناكسن نفرك عيار بلنا waxaa kamid ah Alexander Arnold oo ah 26 jir Ingiriisiana ka tirsan kooxda Liverpool ayaa ku sii dhawaanaya naadiga Real Madrid ciyaartoygan ayaa heshiiskiisa Rediska waxa uu dhici doonaa dhamaadka xilli ciyaareedkan Atletico Madrid waxay xiiseynaysaa 26 jirka Argentina Tottenhamna difaaca dhexe uga ciyaaray ee lagu magacaabo Cristiano Romero Everton waxay bilowday wadahadalada ay qandaraas cusub ay uga sii hayso David oo 22 jir ah waxa soo baxay ciyaartoyga uu helay inta labaad Manchester ka imaanaya iyadoo United kana ay rabaan in Harry Maguire oo 32 jir uu ka tago Old Trafford ay ku bedeshaan ciyaartoygaasi Arsenal Gabriel Keda 27 jirkana waxa uu helayaa qandaraas cusboonaysiin kooxda Arsenal inkastoo difaaca dhexe qaranka Brazil uu helay dalabaad kaga imaanaya horyaalka Saudi Arabia Real Madrid waxay xiiseynaysaa 24 jirka caalamiga xulka qaranka Faransiiska William Saliba kaas oo Gabriel difaaca dhexe ee Arsenal si wada jir ah ay uga wada ciyaaraan Atlanta waxay ku qiimeysay 50 milyan Lukman oo tiimka qaybka ciyaartoyga ayaa helay dalabaad kaga imaanaya kooxo ay kamid tahay Manchester United intaasina waxa ku eeg nafarka ciyaar bilin nabadgelyo